الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لبي طبنات يدروستني بشان محرم أن وطلق لي بإذن الله تبارك وتعالى بش الزكو ولنا وحن كجرنا قيبة الزكاة وأجوبة وجوابك كوبا أنكبحين إنه قيبة كمد الزكاة زكاة ويكوا جبتا حولها المهير ilma yar hadduu xoolo leeyahay nin baa dhintay ilma yar buu uga tegay xoolihiisii uu hadda dhashay ilmahaas zakada xoolaha way ku waajibtaa qofka majnuunka ee waalan xoolihiisa zaka ku waajibtaa agoonta xoolahooda zaka ku waajibtaa shartina ma aha in uu qofka xoolaha lehi caqligiisu taam yahayna sharti ma aha sababta arrintaad ku garani waxaa weeye saad u fahamto zakada waxaa lagu leeyahay xoolaha lagu leeyahay waxa lehina waa dad kale oo masaakiina leh marka xaqii xoolaha lagu lahaa ayaa la bixinayaa sidaasi waa ra'yiga jumhuurul culama ay qabaan way jiraan qolyo dhahaya waxba laga qaadi maayo dadkan aan caqli hadda lahayn laakiin sida raajixa waajibkan xoolaha lagu leeyahay xoolahana waxaa kula dad kale oo muslimiina oo masaakiina baa kule marka waa in la bixiyo way طيب zakada qofka waxyaabaha uu ruuxu insaanku wuxuu milkiyo laakiin uu ku adeegsado adeeg ahaan u haysto sida hubkii uu haystay oo kale sida alaab uu ku shaqaysto oo kale sida dharkii uu qabay oo kale sida midna ritigii uu raranayay sida faraskii uu raranayay waxyaabaha noocaasa baabuurkii uu ku socday waxyaabaha isaga ah zaka lagama rabo laysa cala almuslimi fi cabdihi wala farasi sadaqa yani waxyaabaha noocaasa zaka lagama rabo guryaha iyo baabuurta dukaamada alaabada dhex taala haddii waxaas loo diyaariyey lilbayci watijaara business baa loogu talagalay baabuurka waxaad u gadatay inaad sii gato ayaad u gadatay guriga waxaad u dhistay inuu markay lacagii kuu korto aad sii iibiso ayaa dukaankan waad dhistay laakiin waxaad sii gatay inaad isaga sii gato haddii sidaa ashyaada aad ugu talagashay oo beec iyo business ay tahay oo dhowaan ha sii ziyaada aad leedahay ood iibsatid waxaa laga bixinayaa zaka laga bixin sanadku markuu dhammaado waa la qiimeynayaa gurigan meequu joogaa baabuurkan meequu joogaa ilan welina waxaad u diyaarinaysaa mar alla markii lacag aad ku heshay inaad iibsato marka waxay noqonaysaa in laga bixiyo zakada laakiin haddii guryaha loo dhistay in la dego ayaad u dhisatay guri weyn baad dhisatay laakiin waxaad ugu talagashay inaad degto wiilkaagu qayb dego gabadhaadu qayb degto hooyadaa qayb degto aabba qayb macaka gurigan waxaad ugu talagashay degaana ugu talagashay ama ijaar baad ugu talagashay guryahan waad ijaar intaad gurya tiro badan dhistay ayaad kulli wada ijaaratay ardada iyo dhulka waxaad ugu talagashay inaad qodatood beer aad ka samaysatood ugu talagashay waxyaabaha noocaasa baabuurka waxaad ugu talagashay inaad ijaarato ayaad ugu talagashay ama aad ku shaqayso taraagyadii waaweynaa ood ku shaqaysanaysay ama aad ijaaranaysay ama alaabta adduunka u kala qaadayay waxyaabaha noocaas oo dhan iyagana zaka lagama rabo wax zaka ah oo laga raba ma jiro kuwa iyagana zakadu waxay ku waajibaysaa ujrada shayga مثلا baa gurigan lacagta ka timid ee ijaarka ka timid haddii ay gaadho zako taasaa laga zakayn baabuurku lacagta uu shaqeeyey ayaa laga zakayn marka taasaa zake laga zakayn moo shayga asalkiisa hadday kuu tahay shay aad ku ganacsato ood adigu maaragtay aad leedahay oo inay ganac aad ugu talagelin gaditaan aad ugu talagelin waxba laga bixin maayo sidaas oo kale adawaadka waxyaabo badan baa jiro dukaamada makiinadaha waaweyn iyo waxyaabaha waaweyn oo yaala haddii ay jiraan oo saas oo kale ah oo iyaga naftooda loogu talagalay uun in lagu adeegto waxba laga bixin maayo badaaicda yaala iyagana meesha badeecada waxa la yidhaahdo oo yaala dukaanka yaala dharka iyo kabaha iyo qutuurta iyo waxyaabaha noocaas oo dhan haddii loogu talagalay in la sii gado dabcan waana sidaas shayga in la sii gado shayga dukaanka ku yaala hadday tahay macnaheedu waad gadaa waad iibisaa marka iyaga waxay noqon zakada in laga bixiyo bisheeda marka la gaadho ayaa waxaan isweydiinaynaa waxa ay qiimahoodu yihiin wixii aad gaday waa lacag laakiin waxa naftooda hadda ku jira intii la tiriyo ayaa waxaa la weydiinayaa meeqa lagu qiimeynayaa taasaa la iswarsanayaa
ayib waxaa waajiba iyaga naftooda mashaariicda waxyaabaha waaweyn oo mashaariicda oo ay ka soo baxaan iyo sharikaadka asumta iyo waxyaabaha lagu darsado haddii istismaar loogu talagalay in lagu business iyo ganacsi lagu sameeyo waxaa la yidhaahdaa waxaa laga zakeynayaa waa wixii ribixa ay soo saarto ayaa laga zakeynayaa. haddaba waxaa waajib ah in zakada la bixiyo inta aan qofka tarikada iyo la qaybsanin xooli. Mathalan qof baa dhintay, qofkaa dhintay intaan la dhaxlin ayaa waxaa la rabaa in zakada laga bixiyo. maxaa jira waa dayn iyo xaq lagu leeyahay oo dad masaakiin leeyihin, waa in laga bixiyo ayaa la rabaa, waana laga horumarinayaa qismada ayaa laga horumarinaya. wax kasta oo loo diyaariyey si guud haddaan u nidhaahno ama qaacido guud aan nidhaahno ma ucidda lilbayci watijaara, wax alla wixii loogu talagalay business iyo ganacsi oo sii soconayo oo la gadayo markii la rabo la iibinayo, waxaa zaka laga bixinayaa. sanadka waa la qiimeyn wixii loogu talagalay inaad isaga aadan gadin wixii kasoo baxa uun ama aad ijaarato ama aad deganaato ama aad ku ganacsato shaygaana waxba zaka laga bixin maayo. waa si guud wallahu aclam.